Jarnaal Odawa oo gaashaanka u daruuray in ciidamada Gorgor laga soo saaro Gedo waxa uu qeexay inay ka talinayaan shakhsiyaad leh dano gaar ah oo aan u adeegin qarankeena. Kenya oo ka niyad jabsan diidmada taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Odawa Yuusuf Raage ee ah in laga soo saaro Gorgor guud ahaan gobolka Gedo. Jarnaal Odawa ayaa gaashaanka u daruuray in ciidamada Gorgor laga soo saaro gobolka Gedo xilli ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wadaan ciidanka Kenya. Waxa uu qeexay inay ka talinayaan shakhsiyaad leh dana gaar ah oo aan u adeegin qarankeena. Waxa uu sheegay inay dad kooban oo shakhsiyaad ah ay rabaan in ciidamada Gorgor laga soo saaro gobolka Gedo kuwaas oo ka dhex faa'iideysanaya danaha ay Kenya ka leedahay guud ahaan Soomaaliya. Waxa kale oo uu sheegay inay rabaan in Kenya ay ku qanciyaan maslaxad iyo dana u gaar ah ayagana ay Kenya ka raadsadaan. Arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli gobolka Gedo ay dhaqdhaqaaq ciidan maalmihii u dambeeyay ay ka wadeen ciidamada Kenya oo xuduudda dad shacab oo Soomaaliyeed oo xoolo dhaqato ah iyo kuwa kaleba ku dhibaateynayay. Wasaaradda gaashaandhigga oo laga wacay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxa lagu amray in ciidamada Gorgor ee dhammaan gobolkaas ku sugan sida ugu dhaqsiyaha badan diyaarado ugu soo daabulo keenana xeryo ku yaala gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho. balse taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Jarnaal Odawa ayaa gaashaanka u daruuray amarkaas waxa uu sheegay in ciidanku ay gudanayaan waajibaadkii iyo shaqadii loo geeyay gobolka Gedo. waxa uu sheegay in ciidamada Soomaaliyeed ay gudanayaan waajibaadkoodii gobolkaas ay u tageen. waxa uu ku wargeliyay wasiirka gaashaandhigga in aan loo baahnayn in ciidamada Gorgor saacadan laga soo saaro gobolka Gedo. waxa uu sheegay in gobolka Gedo ay ka jiraan xaalado daran oo loo baahan yahay in wax laga qabto. waxa uu sheegay in aan lagu mashquulin ciidamada Gorgor oo amniga gobolkaas qayb lixaad ku leh. tan iyo markii ciidamada Gorgor la geeyay gobolka Gedo waxa meesha ka baxay ciidamadii Kenyaanka ah ee xasuuqi jiray shacabka Soomaaliyeed ee ku sugnaa gobolka Gedo kuwaas oo si teel u xasuuqi jiray. amarkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli Israa'iil ka tirsan ciidamada Kenya ay rabaan inay gudaha Soomaaliya u soo galaan kuwaas oo ku sugan xuduudda Soomaaliya iyo Kenya. tan iyo markii ciidamada Gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed la geeyay gobolka Gedo shacabka Soomaaliyeed ayaa ee gobolkaas ku nool iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ayaa ku nastay dhibaatooyinkii gobolkaas ka dhici jiray. waxaana la sheegay in ciidanka Kenya markii ciidanka Gorgor la geeyay gobolkaas ay dhammaanba ay joojiyeen xadgudubyadii iyo layntii shacabka Soomaaliyeed. balse tan iyo markii uu xafiiska la wareegay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa ay bilaabeen dhaqdhaqaaqyadoodii istaba joogga ahaa iyo duqeyntoodii dadka shacabka ay duqeyn jireen. waxa muuqata in maalmo ka hor la duqeeyay gobolka Gedo dad xoolo dhaqato ah geesta kale dad xoolo dhaqato ayaa xuduudda lagu xiray Soomaaliya iyo Kenya. arrintan ayaa waxa ay u muuqataa in taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Jarnaal Odawa Yuusuf Raage uu gaashaanka u daruuray diidayna amarkaas uu siiyay wasiirka gaashaandhigga iyo madaxweynaha Soomaaliya ee ah in ciidamadaas banaanka loo soo saaro. xilli ay dalka ka jirto xiisad siyaasadeed oo kacsan ayaa waxa la soo warinayaa in ciidamada Gorgor ee gobolkaas ku sugan ayaga laftigooda aysan diyaar u ahayn inay gobolkaas ka soo baxaan. waxaana la sheegayaa saraakiisha ciidamada Gorgor ee gobolkaas ku sugan in si toos ah ula xiriiray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya una sheegay inaysan ka soo bixi karin fariisimaha iyo sadhigyada ay ku sugan yihiin. waxa uu ku wargeliyay amarkayga ahayn inaysan ku soo bixi karin. waxa uuna sheegay in la rabo in meesha ay shaqada ka hayaan kasii laba jibaaraan. arrintan ayaa waxay dhabarjab iyo fadeexad ku noqonaysaa Kenya iyo filla Soomaaliya. Kenya waxa la sheegay in aad uga niyad jabayso taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo hore oo Kenya ay u arkaysay mid aan danaha Kenyaanka aad u fulin. Kenya ayaa go'aanka amaba amar diidada uu sameeyay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Jarnaal Odawa Yuusuf Raage waxa uu ku reebay niyad jab. waxaa muuqata Kenya inay ka dhex faa'iideysanayso xilliga kala guurka ee dalka. waxaana la sheegayaa amarada faraha badan ee la siinayo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya inay galaafan doonto xilkiisa maalmaha soo socda. ilaa ay hadda waxa la sheegayaa in Kenya ay aad uga carootay amar diidada uu gaashaanka u daruuray in ciidankaas laga soo saaro gobolka Gedo ee Gorgor. waxa ay Kenya ay ka faa'iidi lahayd haddii ciidankaas laga soo saaro gobolkaas in dhammaanba shacabka gobolkaas ay xasuuqdo. waxaana ay hore u sameysay falal ka baxsan bini'aadanimada. ciidanka Kenya ayaa inta badan dadka Soomaaliyeed ee xuduudda ku nool iyo kuwa gobolkaas ku nool dhibaatooyin joogta u geysanayay tan iyo intii aan ciidankaas aysan gobolkaas tagin. waxaana muuqata in ciidankaas markii ay gaareen gobolkaas ama ay tageen in shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka gobolka Gedo aad u soo dhaweeyeen. waxaana la sheegayaa in gobolka Gedo uu ka mid noqday gobolada ugu amniga badan markii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee Gorgor ee gobolkaas tageen.